halkani waa BBC London saacadda Afrikada Bari iminka waxay tilmaamaysaa 9 fiidnimo oo gow ah. kulan waxaan wanaagsan khiyaartana dhageysanaysaa meel walba joogtaan waa habeen jimcaha sabta ayaa soo galaysa 22 Juun. Idaacadda waxaad ku maqli doontaan wada hadalladii South Sudan ee Addis Ababa ka socday oo shaki galay kadib markii wasiir ka tirsan dawladda Juba meesha uu ka saaray Riek Machar in uu dawladda mar kale ku biiri doono. As the people of South Sudan, not the president alone, but as the people of South Sudan, we are saying enough is enough, and if he wants to be the president. Etoobiyana xayiraadihii waxay ka qaaday internetka. Kenyana waxaa la xiray hawlwadana dawladda u shaqaynayay markii isbandhaaf xoog leh uu ka dhashay sokorta dibadda laga keeno. Madaxweyne Trump waxa uu ku hanjabay 20% canshuur ah inuu dul saari doono gaadiidka yaryar ee Yurub haddii midowga Yurub aanu joojin muranka sii xoogaysanaya ganacsiga labada dhinac. Waxaad kaloo idaacadda caawa ku maqli doontaan Mombasa markaan geynay ama saas u diyaari karno ama u hagaaji karno ma bal aaminsaneenba kan annaga aan soo diyaarinay waa kii ugu horeeyay kii badaha doonyaha kale ay qaadeen oo taagan iyo kii aan diyaarinay nadiifka ah lagu qancay isla markiiba la qaatay waa markii ugu horeysay oo 30 sano ku dhawaad kalluun laga dhoofiyo magaalada Kismaayo loo ganacsi geeyay dalka Kenya isagoo warshadaysan Talyaaniga iyo Spain waxay weydiisteen Malta inay qaadato 234 muhaajiriin oo dul saaran markab soo badbaadiyay oo badda Mediterranean ka taagan iyo natiijooyinka koobka kubadda cagta ee Russia ka socda iyo warar kale halkani waa London. waxaa ka horeynaya wararka caalamka ee BBC-da waxaa noo haya Aadan Saalimiin. Mahadsanid Cabdinuur. Iyadoo ay ka sii darayso xiisadda ku saabsan dagaalka ganacsiga ayaa madaxweynaha Maraykanka Trump waxa uu ku hanjabay in uu ku soo rogayo 20% canshuur gawaarida yaryar ee ay midowga Yurub u soo dhoofiyaan dalka Maraykanka haddii aanay ka dhaafin canshuurta ay ku soo rogaan badeecadaha Maraykanka. Faaladiisa ayuu ku sheegay Twitter-ka waxaanay ku soo aaday iyadoo maanta midowga Yurub ay argoosi ahaan ay canshuurtii ku kordhiyeen wax soo saarka Maraykanka taas oo ay kaga jawaabayeen canshuur hore oo Maraykanku horey ugu soo rogay birta iyo aluminiyumka laga soo dhoofiyay Yurub. Saamiyada shirkadaha Yurub ayaa hoos isla markiiba ugu dhacay markii uu warkaasi soo baxay. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu sheegay oo uu ka sheegay shir looga hadlayay maalgelinta in maamulka Trump yoolkiisu yahay in dunidu ay ka dhaxayso ganacsi siman oo xaq ah. U.S. economic leadership is built on principles of fairness and a level playing field. wasaaradda arrimaha dibadda waxa u yaalla qorshaheeda ay tan ku gaadhayso waana u dagaalami doonaa xaqa hal abuurka hantiyeed ee Maraykanka ee caalamka. waxaad ku kalsoonaataan sidii aan uga shaqayn lahayn in aanu wax soo saarkiina iyo hindisihiina ka ilaalino in la xado xaqiinana aan si khaldan loo isticmaalin. From copyright violations or from other misuse. xafiiska xuquuqda aadanaha ee Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa ayaa ku eedeeyay ciidamada ammaanka ee dalka Venezuela inay dil u geystaan 100 qof kuwaas oo aan waxba galabsan tallaabo ay kula dagaalamayaan dembiyada. Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay inay hayaan xisaab la isku halayn karo in ciidamada amnigu ay weeraraan xaafadaha danyartu ay degan yihiin oo ay ku dilaan ragga dhalinyarada ah inta badanna guryaha ay u dhacaan kadibna ay sameeyaan xaalado ay cadaymo ugu raadinayaan inay u ekaysiiyaan in dembiyadu ay hoos u dhaceen iyadoo kuwa mas'uulka ka ahna aan la xisaabtamin. dalalka saliidda soo saara ee ka tirsan ururka OPEC ayaa isku raacay inay kordhiyaan wax soo saarkooda si ay u daboolaan dalabka dheeriga ah. OPEC ayaa waxay xanibtay oo ay horey u xanibtay wax soo saarkeeda muddo sanad ka badan si ay kor ugu qaado qiimaha shidaalka, laakiin macaamiisha dalalka waaweyn sida Maraykanka iyo Shiinaha ayaa ku baaqayay in tallaabooyinkaasi ay hoos u dhigeen qiimaha tamartooda. Sacuudi Carabiya ayaa ku dooday OPEC inay u baahan tahay in ay dhegaysto baahida iyo dalabaadka caalamka ka soo yeeraya. Kooxduna waxay isku raaceen inay sare u qaadaan wax soo saarkooda ilaa 1 milyan oo fuusta maalintiiba, laakiin ganacsatada ayaa ku qeexay inay tani ay tahay oo keliya wax yar uun oo sare loo qaaday. dhawaaqaasi markii lagu dhawaaqayna qiimaha saliidda ayaa xaqiiqdii sare u kacay suuqyada caalamka. madaxa hay-adda qaxootiga qaramada midoobay Filippo Grandi ayaa ku booriyay dalalka midowga Yurub inay keenaan heshiis cusub oo ay ku midaysan yihiin oo ku saabsan socdaalka. waxa uu sheegay is-afgarad iyo midnimo
in ay muddo dheer ka maqan tahay midowda yurub oo mowqifkoodu markaasi dhowaa ku saabsanaa isbeddelka mas-uuliyadeed inuu dhaawacay qaxootiga iyo midowda yurub labadaba. mar sii horeysay boyka borizow ra-iisul wasaaraha bulgaariya ayaa waxa uu sheegay in uu weydiisan doono shiryaraha degdega ah ee midowda yurub ee toddobaadkan dhacaya inay xidhaan xuduudaha dibadda ee midowda si dhaqso leh. waxa uu sheegay midowda yurub inay qarashka ku bixiyaan xarumaha ku yaala liibiya iyo turkiga si ay hoy ugu noqdaan qaxootiga dagaalka ka soo cararay ilaa iyo inta ay guryahooda dib ugu noqonayaan. mar sii horeysan afhayeen u hadlay dowladda hungariya soltan kovaski ayaa b b c da u sheegay in hungari ay doonayso inay ku dhaqanto oo ilaaliso dhaqanka iyo dhaxalka ay leedahay oo ay ka ilaaliso soo galootiga dhaqaale raadiska ah. In the heart of Europe, in Central Europe, we all know a lot about multiculturalism and how to live in an international environment. waannu ogsoonnahay marka laga hadlayo wadnaha yurub inay jiraan dhaqamo badan iyo in lagu wada nool yahay bii'ad caalami ah. hase ahaatee taas oo jirta ayaa haddana waxaannu arkaynaa waxa yurub ku soo socda ee ku soo fool leh weliba inta badan qaybo yurubta galbeed ah oo ay soo baxayaan bulshooyin aan dhaqan ahaan isku milmi karin. taasina waa xaqiiq jirta. talyaaniga iyo sbeinna waxa ay weydiisteen maalta inay qaadato 240 qaxooti oo muhaajiriin ah oo hadda ku sugan badda mediteraneanka kuwaasoo saaran markab wax badbaadiyo oo laga leeyahay dalka jarmalka. soo galootiga ayaa laga soo qaaday meel ka baxsan xeebaha dalka liibiya maalintii khamiistii. talyaanigu waxa ay sheegeen maalta inay tahay dekadda ugu dhowee nabdoon, laakiin maalta ayaa waxay sheegtay inaanay awood u lahayn inay deegaan ay dejiso dadkaasi tirada badan ee soo badbaaday. hay-adda wax badbaadisay ee lifelineka loo yaqaano ayaa diiday eedeymaha 2 wasiir oo talyaani ah oo markaasi sheegay inay hay-addaasi ku shaqaynayso si sharci darro ah oo calanka dhajka ay wadato oo ay qaxootigana ka soo qaadayso biyaha liibiya taasoo khilaafsan heshiiska caalamiga. warkii oo intaasi ku egaan dib idu ka celiyo cabdi nuur. saalimiin aad baad u mahadsan tahay. halkani waa london. aan ku bilowda dowladda south sudan oo maanta iclaamisay inaanu boos uga bannaanayn dowladda jubba inuu ka mid noqdo hogaamiyaha mucaaradka riek bashaar. waa tallaabo ee jab ku noqon karaysa dadaalkii u dambeeyey ee la doonayay in lagu joojiyo colaadda sokeeye 4 sano dalkaasi ka socota. toddobaadkan waxaa soo baxay rajo lagu waday inay horseedi doonto guul in laga gaaro colaadda dalkaasi markii hogaamiyaha mucaaradka mashaar iyo madaxweyne kiir foolka fool ay ugu wada hadleen magaalada addis ababa oo dabeetana halkaasi ay u soo duuleen madaxweynayaasha urur goboleedka igaad si cadaadis ay u saaraan labada dhinac ee ka mas-uulka ah colaadda sokeeye ee dalkaasi ka socota. waxaase rajadii soo baxday quus ka dhigay markii wasiirka warfaafinta ee south sudan michael mcwey meesha uu ka saaray hogaamiyaha mucaaradku inuu wax ka noqonayo ama uu ku biirayo dowladda. kadib heshiiskan oo aynu ku doonayno dib u soo celinta isaga reek mashaar wuxuu noqday madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyey ee isku daya inuu afgembi ku sameeyo madaxtooyada. intaasi nagu filan. dadka suudaanta koonfureedna waxay qabaan cabsi oo ma doonayno inqilaab kale oo labaad ama saddexaad. madaxweynaha oo keliya ma ahan ee dhammaan dadka suudaanta koonfureed oo dhan waxay leeyihiin intaasi nagu filan. haddii uu doonayo in uu noqdo madaxweyne waa inuu sugtaa doorashooyinka. south sudan waxaa ka qarxay dagaal sokeeye 2013 markii madaxweynaha iminka kiir uu ku eedeeyey ku-xigeenkiisa inuu doonayey inuu inqilaabo. kadibna dagaalkaasi labada dhinac ka qarxay ayaa waxa uu horseeday in qolol la isu laayo. 2015 ayaa dabeetan laysu keenayo waxaa la gaaray heshiis nabadeed oo mashaar uu ku noqday caasimadda jubba. waxaase heshiiskaasi uu burburay bishii julaay 2016 oo dagaalkii dhacay khasab ay ku noqotay madaxweyne ku-xigeenkii inuu dalka isaga cararay. mashaar wuxuu joogay tan iyo markaas dalka south africa ilaa arbacadii oo uu addis ababa kula shiray madaxweyne kiir kulan uu qabanqaabiyey ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed. halkaad nagala socotaana waa b b c london. dowladda etoobiya waxay xayiraadii ka qaaday bogaga internetka iyo telefishinno waddanka mamnuuc ka ahaa. waa qayb weyn oo ka mid ah isbedelada uu wado ra-iisul wasaaraha dalkaas. etoobiya sanado badan waxaa xayiraado iyo xadidaad xoog laba lagu hayay internetka waxaana dalka laga mamnuucay telefishinno dowladda dhaliilayey oo dibadaha ku yaal. wariyaha b b c da will ross ayaa warbixinta noo diyaariyey. waxaa soo jeedinaya wariyahayaga faarax lamaane.
264 isugu jira shabakadaha internetka iyo maxadadaha TV-yada ee noqon doona wixii hadda ka dambeeya kuwa aan xayirnayn waxa kamid ah ISAT iyo OMN oo labadaba saldhigoodu uu yahay Mareykanka kuwaas oo aad wax uga sheega xukuumadda laguna eedeeyay inay rabshado abuuraan arintan ayaa waxa ay tahay tallaabo kale oo muujinaysa dhinaca ay u socoto siyaasadda aan caadiga ahayn ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha oo la yiraahdo Festum Arega ayaa waxa uu sheegay in xorriyatul qowlka uu yahay xaq asaasi ah helitaanka xogtana ay tahay arrin laga maarmaan ah arrintan ayaa waxa ay astaan u tahay isbedel xoog leh oo dalka uu ka wado ra'iisul wasaaraha cusub in ka badan 10 sanadood ayaa maamulayaasha Itoobiya waxay aad u xanibeen in la booqdo internetka waxaana ay xireen maxadado TV kuwaas oo loo arkay inay afdheer yihiin sanadkii hore oo kaliya cidii lagu helo ayadoo daawanaysa TV-yadaas waxa ay mutaysanaysay in la qabto oo la xiro Mr Abiy waxa kale oo uu gacan haatiyay mucaaradka siyaasadda dadaal uu ku midaynayo dalka uuna isku dayayo inuu soo afjaro cadaawadii 20 sanadood kala dhaxaysay dalka ay jaarka yihiin Eritrea Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in xukuumadaha labada dal ay muujiyeen hoggaan dhiiranaan leh ayagoo tallaabooyinna u qaaday dhanka nabadda araxlabaana aad buu u mahadsan yahay isla warka ku saabsan in Itoobiya xayiraadihii ay ka qaaday bogagga internetka iyo telefishinadii dibadaha ku yeelay iyo Facebooka BBC Soomaali waxa kaga soo raayay dhibtay dhageystayaal uu kamid yahay Cabdullaahi Axmed oo jooga magaalada Muqdisho oo yiri isbedelada siyaasadeed ee ka bilowday dalka Itoobiya majaraha uu hayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waa ambogaadinaya waana soo dhaweynaya in telefishinadii caalamiga ahaa ee muddada xirnaa xayiraadaha laga qaado iyo internetka sidaas oo kale Faarax Cabdi Xuseen guure oo isaguna jooga magaalada Galkacyo waxay la tahay internet iyo television dib loogu ogolaaday dadka reer Itoobiya inay tahay talaabo wanaagsan waxaana laga soo gudbayaa buu yiri caburintii dadka reer Itoobiya muddada ay dareemayeen ciid qaasin oo jooga magaalada Burcana waxa uu qabaa in run ahaantii ay tahay arrin aad u fiican buu yiri talaabadan ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu qaaday waana isbedelkii looga fadhiyay talaabadan laga saaray xayiraadii telefishinada iyo bogagga internetka waa tahay halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC London noocyada kalluunka Soomaaliya loogu jecel yahay tuunada iyo taraqada oo si heer sare ah loo farsameeyay ayaa loo dhoofiyay dalka Kenya waa markii ugu horeysay muddo 30 sano ku dhawaada oo kalluumaysatada magaalada Kismaayo ay dhoofiyaan kalluun ay ka soo jilaabteen xeebaha magaalada oo lagu farsameeyay warshad kalluun ku taala magaalada oo kalluunku ugu horeeyana loo iibgeeyay magaalada Mombasa ee bishii March ee sanadkan aynu ku jirno si tafaasiil badan arrintaas aan uga helno ayaa wariyaha BBC Ibrahim Maxamed Aadan oo dhawaan shaqo u tagay magaalada Kismaayo waxa uu soo arkay warbixintan uu nooga soo diyaariyay warshadda iyo kalluunka kalluumaysatada reer Kismaayo waxay saacado badan ku jiraan badda si ay kalluun badan u soo jilaabtaan marka ay yimaadaan xeebta waxay bilaabaan inay doonta ka dejiyaan kalluunka si ay ugu wareejiyaan warshad yar oo laga hirgeliyay magaalada dabadeedna loo dhoofiyo noocyada kalluunka ay soo jilaabtaan waxaa ka mid ah kalluunka qaaliga ah ee loo yaqaano kingfish ama taraaqad iyo nooca kale ee tuunaha kalluumaysatada ayaa ku faraxsan inay helaan qaboojiyayaal iyo warshad kalluunkooda lagu hayo waqti badan si fursad loogu helo in meelo fogfog loo iibgeeyo Mustafa Abdullaahi Maxamed waxa uu ka mid yahay kalluumaysatada magaalada Kismaayo waxa uu ka sheekeynayaa dhibka ay qabeen koor inta aanay helin warshadan yar ee lagu diyaariyo kalluunka dabadeedna la dhoofiyo kalluunka awal hore badan ka soo saari jiray waxaan keeni jiray suuqa markaan keenno marar badan oo kalluunku markuu baddo ay saayid u furanto kale waxa dhici jirtay inaan meelaan ku kaydsano oo dhigno oo kalluunka haysa inaan weyno waqtiyadii hore kalluun badan ayaa ka halaabi jiray sababo la xiriira inaanay heli karin goobo ay ku kaydiyaan halkan waa warshad yar oo lagu diyaariyo kalluunka koor inta aan la dhoofin sanadkii hore ayaa la hirgeliyay laakiin kalluunkii ugu horeeyay ee halkan lagu habeeyay waxaa Mombasa loo dhoofiyay bishii 3aad ee sanadkan heerka qabowga ee kalluunka lagu kaydiyo waa -40 ganacsatada warshadan yar ayaa sheegaysa in si weyn looga soo dhaweeyay suuqyada Mombasa kalluunka ay u iibgeeyeen sida uu Cabdiraxmaan Faarax Guuleed uu sheegayo Kafishin waa meel kalluunka lagu diyaariyo oo aad yani nadaafadeeda iyo processingkeeda iyo qaabka kalluunka loo habaynayo dad professional ah oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo isbiirsaday ah
waana ku guuleysanay insha Allah taala haddana rijo waxaan ka qabnaa in sidii la rabay aan u gaarno Mombasa markaan geynay mabal aaminsanaysaas inaan saas wax u diyaari karno ama u hagaaji karno mabal aaminsanaynba kan annaga aan soo diyaarinay waa kii ugu horeeyay kii badaha doonyaha kale ay qaadeen oo taagan iyo kii aan diyaarinay nadiifka ah lagu qancay isla markiiba la qaatay laba maalin gudahooda ku dhamaaday kalluunkii intaas oo tanaha warshada waxaa sidoo kale lagu habeeyaa kalluunka la jarjaray ee loo diyaariyey in la dubo ama la kariyo taas oo loo iibgeeyo suuqyada magaalooyinka kale ee Soomaaliya finger kanoo kale waxaan ka jirnaa 10 nooc oo kalluun ah haddii sidan oo kale la kordhiyo warshadaha yaryar ee lagu kaydiyo kalluunka waxaa la rumaysan yahay in ka badan inta tan ee hadda la dhoofiyey in loo iibgeyn lahaa suuqyada gobolka taasoo dhaqaalaha wax badan ku soo kordhin lahayd Ibrahim Maxamed Aadan BBC Kismaayo halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC London dalka Kenya 6 qof ayaa la xaqiijiyay in ay xanuunka Rift Valley ugu dhinteen degmada Wajeer dad kale oo xanuunku ku dhacayna nasiib wanaag waa laga gaaray oo laga daweeyay cudurkan waxa laga qaadaa hilibka xoolaha sida daraadeed ayaa mas'uuliyiintu waxa ay mamnuuceen in xoola lagu qalo kawaanka Wajeer haddaba dadaalada socda mas'uuliyiinta gobolka iyo dawladduba ay cudurkaasi kula xaalayaan ayaa BBC-da waxa uga warramay madaxa caafimaadka xoolaha ee degmada Wajeer Cabdiraxmaan Bilow Nuur wuxuu u warramay wariyahayaga Axmed Badar shirka waxaa ka soo baxay in cudurkii ilaa 70 qof uu saameeyay dhimashadana wali ay 6 marayso oo ay kordhismin 70 qof oo uu saameeyna waa la daaweeyay xaafadooda ay qaarkood ku noqdeen qaarna isbitaalada ay wali joogaan waxaa kaloo jirta 56 neef xoolaha ayaa laga qaaday sample aricadka 22 neef ayaa dhiigooda la qaaday 6 baan laga arkay xanuunka Rift Valley fever idaha 17 neef ayaa sample laga qaaday 9 ayaa laga helay cudurka Rift Valley fever geela 15 neef oo geela ayaa laga qaaday dhiiga 2 baa laga helay inay cudurka Rift Valley fever ay qabeen ama dhiigooda laga helay looda hal sample la qaaday sampleka asaga ayna waxba laga helin marka waxa la isku raacay dhamaan in xanuunkan uu wali ku jiro xoolaha dadkina ay wali xoolihii ay hadii kulay hilibkan waa la joojiyay laakiin dadka qaar qabsooniye iska qalanayaan ribaadiyaha la hilib lagama karaya marka waqtigii maadaama hadda uu ka eg yahay ma la kordhiyay waqtigii mamnuucidda in dadka aysan hilibka cunin oo kawaanada ay xiran yihiin maadaama xoolihii ay wali qabaan xanuunkii dadkina ay wali xanuunkii qaar ay qabaan waxaan go'aansanay in 14 bari oo kale lagu daro oo hilibka dadka laga mamnuuca waxaa kaloo isku afgaranay anagoo la kaashanayna wasaaradda xanaanada xoolaha in la xiro suuqa xoolaha oo xoolaha lagu kala gadanayo maxaa yeelay suuqa hadduu furan yahay waxaa suurtagal noqonaysa dadka in ay xoolaha kala gataan sidaa iyadana ay fududaynaysa in hilibkana uu suuqa sideeda ku galo marka laga soo tago in aad hilibka mamnuucdeen in la qasho xoolaha suuqyadana la xiro ma jiraan tillaabooyin kale oo wacyigelin ah oo aad qaadeen ilaa imika nimanka kawaanada ka shaqeeyaan ayaan la shirnay ilaa dadka ugu horeyso ay saameynayso ayaga waxayna sugayeen 21 bishan in laga korqaadi doono mamnuucidda laga mamnuucay qalitaanka xoolaha waxaan ku wada heshiinay in 14 haddana aan ku darna maadaama ay xoolihii wali ay xanuunsan yihiin waxaan sameynahaynaa oo kale wacyigelin oon sameynahaynaa oon dadka u sheegaynaa idaacadaha kuwa local FMskan ugu sheegaynaa qaabka loola dagaalami lahaa cudurkan Rift Valley fever wixii laga qaada iyo qaabkii qofka hadduu iska dareemo inuu cudurka asaga u qabo waxa uu sameyn lahaa idaacadaha ayaan ka sheegaynaa waxaa kaloo countiga Wajeer ay sameynaysaa kaneecada oo la yareeyo oo la buufiyo xaafadaha dayriya ay aad u saameysay waa la buufintana way sii socon doontaa waxaa kaloo la sameeyey wasaaradda xanaanada xoolaha waxaa kaloo samaysay waxay keentay daawo loogu tirigalay xoolaha in la mariyo qaniinka sidoo ay uga reebta ilaa kaneecada iyo qaniinkii waxaan baa u keenaya xoolaha xanuun wacyigelinta waxaad sheegtay inaad wadaan dadka miyiga ah ma gaarsiiseen wacyigelinta magaalada kale kama wadna wacyigelinta waxaan ka wadnaa ilaa sub counties-ka waxaa la aadaa ilaa degmooyinka hoose ayaa la tagaa meelaha qaar oo la gaari karin moogii badi waa la wada gaari meelaha network leena raadiyaha ka wada maqlaan baadiyahana kulli akhbaar way isu gudbinayaan marka waa loo sheegay dadweynaha reer Wajeer meel walba ay joogaan xanuunkan intuu khatartu leeyahay qaabkii looga hortagi lahaa iyo sidii loola dagaalami lahaa way ka warhayaan badidooda waxaa kaloo sameynay text message oo waxaa jira oo dadka badi u galayo oo soo diraysa Safaricom oo nooca cudurka lagu garanayo
xanuunka meeshuu kaa qabanaya sida madaxa kor xanuunka faraha badan ama marka qaar dhiig kaa imaadaya qaybaha duleelka biniaadanka uu ka duleelo marka messageka asagana waagi walba oo barya dad badan u galaa oo kulley ka war helaan ayagana waa sii faafiyaan aad buu u mahadsan yahay cabdixakiim bilow nuur madaxa caafimaadka xoolaha ee deegaanka wajeer oo u warramayey wariyaha b b c da axmed bedel halkaad nagala socotaana waa london bogga internetka ee b b c somaly com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin bbc somaly com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo waraysiyo warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka b b c somaali ugala soo deg google play ama abstoreka bbc somaly com waa halka ugu horaysa ee wararka laga helo bogga internetka ee laanta af soomaaliga mar kasta iyo meel kasta mardhow cayaaraha kubadda cagta adduunka ee ka socda raashiya oo garoomo kala duwan ka dhacaya iyo natiijooyinka imaantay oo qaarkood ay yeeb lahaayeen ayaa noo soo socda hase ahatee marka kan muslimiinta dalka maraykanka ayaa waxay soo dhoweeyeen koongareeska oo ansixiyey qaanuun damaanad qaadaya xurriyadda ku dhaqanka diinta islaamka ee muslimiinta aad ayaa arrintaasi ay u farxad gelisay waxaana baarlamaanka horgeysay senatorad amy colobajar oo laga soo doorto gobolka minnesota oo xaruntiisu tahay minneabolis haddaba guddoomiyaha waxbarashada ee minneabolis siyaad maxamuud cali oo islamar ahaantaana la taliye u ah senatorada tan oo la yidhahdo amy ayaa waxaa waraystay wariyaha b b c da maxamed xaaji xuseen shiine qaraarkan horta waxaa keenay senior senator amy colobashar oo ka tirsan golaha senadka una matasha gobolka minnesota waxa uu aqoonsanayaa xorriyadda buuxda ee dadka muslimiinta ah ee maraykanka ku nool ay u leeyihiin inay xor u yihiin diintooda wuxuu kaloo aqoonsanayaa waxa ay ku soo kordhiyeen wanaagga muslimiinta guud ahaan dalkan kan maraykanka sida dastuurkuba uu qabo in qof kasta xaq u leeyahay inuu diintiisa xor u yahay ilaahay caabudo oo diintiisa inuu ku dhaqmo qof kasta uu xor u yahay sidaas baa haddana dadka muslimiinta iyaguna ay xorriyaddaasoo kale u leeyihiin wuxuu kale oo uu leeyahay ama ka digayaa inaanay marna suurtagal ahayn in qof loo eego diintiisa inaanay marnaba noqonin in qofka diintiisa lagu cadaadiyo ama lagu xaqsijiyo maxaa keenay in qaraarkan hadda uu soo saaro oo senatarada reer minnesota ay geeyaan golaha senadka runtii sidaad ka warqabtid waxyaaba fara badan baa jira oo la ogyahay maraykanka culaysyaa jira dadka muslimiinta soo wajahay oo aad og tahay nacayb inuu jiro laakiin nuxurka ugu muhiimsan waxa weeye tani in dadweynaha ay dee golaha senadku ama golaha baarlamaanku ay ummadda iyaga ka wakiila marka waa muhiim mar walba inay maaragtay xaqiijiyaan baraarujiyaan sharciga dadka ay xasuusiyaan qaraarkan tusaalehaan wuxuu leeyahay dadka muslimiinta ah kuwooda soo galeytiga immigrant-ka ah iyo kuwa halkan ku dhashay iyo dad ka soo kala jeeda muslimiintu asalada yacni quruumo badan weeye muslimku oo dad maaha hal dal ka wada yimaad adduunka o dhan bay ka wada yimaadeen ama asal ahaan ka soo wada jeedaan dad baa halkan jira maaragtay boqolaal sano deganaa dad ka badan waxaa la sheegaa 3 milyan oo muslimiin inay maraykanka ku nool yihiin in xuquuqdoodu ay tahay lama taabtaan inay yihiin dad dalka kan waxtar badan ku soo siyaadiyey ciidamada qalabka sida hadda ay ka mid yihiin in ka badan 5,000 inay yihiin dad aqoon-yahano ah oo khubraa leeyihiin oo cilmiga sayniska iyo caafimaadka iyo injineerinka iyo cilmiyada kaleba ku sameeyey horumar xaddaafa oo maanta maraykanku uu ka faa'iido oo qof kastoo maraykana oo anfacay muxuu qaraarkani dadka muslimiinta marka sidaas la yidhi muxuu u tarayaa wuxuu u tarayaa runtii dee waa sharaf weyn weeye waa aqoonsi weyn weeye waxa weeye waa markac weyn buu u yahay muslimiinta wuxuu u markhaati furayaa inay muslimiintu yihiin dalkani dalkoodii inay dalkan wax badan ku soo siyaadiyeen inaanay dalkan marti ku ahayn dalku inuu yahay dalkoodii waxyaabaha nacaybka ah ee jirana aanay ka turjumayn aragtida
golaha baarlamaanka ama senadka maraykanka wuxuu kale oo xaqiijinayaa qof kasta oo humaa kaga jiray ama mugdi kaga jiray ama ismoodsiinayey ama nacaybba hadduu doono iskiiba ha ahaado ama wax kaleba ha ku abuuraane in dadka kani ay ku taagan yihiin yacni jirridda adag inay ku taagan yihiin oo asaasna uu yahay dastuurka dalka siyaad maxamuud cali oo ah gudoomiyaha waxbarashada magaalada minneapolis ee dalka maraykanka oo uu waramayey wariyahayaga maxamed xaaji xuseen shiine halkaad nagala socotaan waa london markana wararka isboortiga iyo mawlid xaaji cabdi oo nooga warrama koobka adduunka iyo nin dunida ka yaabiyey indiya ayuu baaskiil ka soo watay waxa uu rabaa koobka adduunka inuu arko oo laacibiinta adduunka ugu waaweyn mid ka mid oo aad u jecel yahayna inuu arka mawlid bal iigu bilow warar wanaagsan ba afrika galabtay ee u soo yeeray kooxihii matalayay waa sidaasee cabdinuurow kooxda nigeria ayaa la filayay in ay ku biirto kooxihii kale afrika ka socday sida morocco iyo masar inay koobka ka hadhaan laakiin wacdaro ayaa goor dhaweyta ay dhigeen kooxda nigeria waddanka iceland oo ah waddanka ugu yar ka qaybgelaya koobka adduunka ayay waxay ku dhigeen wacdaro aan la arag oo la maqal ciyaaryahanka axmed muuse ayaa daqiiqadii 49aad gool qurux badan shabaqa iceland ku hubsaday laakiin xaaladda iceland waxay ku sii xumaatay daqiiqadii 75aad oo inta uu dhex maray kubad oo golhayihii u qanciyay axmed muuse mar kale laba ciyaartooy oo iceland ka socota oo shabaqa taagan kubadda ku dulqaaday sidaasna ciyaarta ay ku noqotay 2-0 waxaad moodaa rajada afrika cabdinuurow inay soo laabatay oo waynu la soconnay in senegal ay badisay toddobaadkan haddaba iceland waa laga badiyey nigeriana way badisay gruupka d ama da ayay ku wada jiraan aan kaa dhex galo iceland waa ay yar tahay baa tiri laakiin hadda tiimkooda waa kulul yahay waa tiim runtii ingiriiska waxay ku dhigeen baa weli xasuusta ciyaarihii yuurada aad iyo aad croatia waxay leedahay 6 dhibcood nigeriana waxay leedahay 3 dhibcood iceland waxay leedahay 1 dhibic argentina oo adoogayda xala sida loo galay ninkii messi hana madaxa isagoo foorinaya garoonka uu ka baxay waxay leedahay 1 dhibic micnaheeda taas markaa maxay ka dhigan tahay ciyaarta ugu dambaysa waxaa kulmi doona croatia oo la ciyaari doonta iceland croatia horta iyadu way soo baxday oo 16 way joogtaa waa hubanti inay ciyaari inay markaa waxayse kaliya u baahan tahay inay hesho 1 dhibic oo ay ka hesho iceland markaana waxay noqonaysaa inay groupka ku dhamaysato kaalinta koowaad nigeria laakiin iyadu waxay u baahan tahay inay argentina iyo messi isla socda ka badiso croatiana ay ka badiso iceland sidaas marka waxay ku noqonaysaa inay soo baxaan croatia iyo nigeria iceland waxay ku soo bixi kartaa inay croatia ka badiso nigeriana ay ku guuldaraysato argentina oo weliba gool badan looga dhaliyo argentina iyadu xaaladeedu way xun tahay waxaa laga rabaa inay nigeria ka badiso icelandna ay ka badan weydo markaa croatia oo ayna markaa goal difference waxa la yiraahdo ay soo baxaan sheekooyinka aad bay yaabulay ninkii iga waran isaga biskiletiga indiya ka soo watay oo u soo safray Russia safarkiisa xagee maraya inta ninkaan horta aan u gadagelin axmedow xulka la yiraahdo Brazil waan ogeeyno ciyaartii ugu horeysay waa iyagii barbardhac galay waxaa ku dhacday misna in la filayayba inay noqon karta inay ciyaartii maanta ay la ciyaarayeen waddanka la yiraahdo Costa Rica ay xaaladda ku xumaato oo laga badiyo laakiin sidaas ma noqon oo waxay noqotay daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta ayaa ciyaaryahanada Filipe Coutinho iyo Neymar waxay la soo baxeen sababta ay u yihiin ciyaartoyda kooxda Barcelona oo waxay sameeyeen wax aan la arag oo la maqal kadib markii 2-0 ay ku badiyeen daqiiqadihii ugu dambeeyay taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay in ay markaa rajo fiican leeyihiin ninkan waddanka Hindiya u dhashay baaskiil ayuu kaga soo safray waddankiisa wuxuu doonayay inuu la kulmo ciyaaryahanka Lionel Messi ee kooxda Barcelona iyo qaranka waddankaasi Argentina u ciyaara ninkani waxaa la yiraahdaa magaciisa Calvin Francis wuxuu ka soo safray koonfurta waddankaasi Hindiya wuxuu codsaday saaxiibadiisa uuna u sheegay saaxiibadiis baa qaarkood waxay ka codsadeen in uu koobka adduunka u tago markaasuu yiri waa tegi karaa weli waxaan rabaa inaan baaskiil nin lacag haystana maano iska macalino mushaarkiisuba waa $40 aad iyo aad gebigiisa wuxuu qaataaba lacag $40 mushaar ahaan u qaata waa nin macalina laakiin ninkii xagee buu maraya hadda soo gaaray ninkii horta waxaa dhacday ruushka hadda wuxuu u jiraa in ka yar 2600 oo mayl ayuu u jiraa waa soo socda marka waa soo dhow yahay wuxuu doonayaa ugu dambayn inuu u arko ciyaartooyga Lionel Messi laakiin la yaabka waxay tahay haddii ciyaarta soo socota laga badiyo isna uusan soo gaarin ruushka Messi waa iska tagay Messi waa tagay diyaaradda raaci doona
waan rajaynaynaa ninka intaa soo safray inuu messi la kulmo oo uu yidhi waa cayaartooyga adduunka aan ugu jeclahay oo la'aantiis wuxuuba ugu weyn oo aan u su'aalayba waa isaga uu yidhi mawlid aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaashuna waa mahadsan yihiin idaacadda caawa intaasay ku dhantay tan iyo aroorta 7 xaggiina nabaday